ardayda kuliyadda nafaqada ama faculty nutrition ee jaamacadda Adna Aadan ayaa la geeyay magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil gaar ahaan hay'adda dhowrista tayada qaranka Somaliland taasoo lagu gol leeyahay si ay waxyaabaha ay dhigteen ardaydu loo tuso iyadoo practical ah ama toos ah. maamulka kuliyadda nutrition ee jaamacadda Adna Aadan ayaa waxay faahfaahiyeen sababta ardayda loo keenay xarunta hay'adda dhowrista tayada ee magaalada Berbera. anigoo ah maamulka kuliyadda nutritionka ee jaamacadda Adna Aadan maanta waxaan u soo baxnay fiil kamida fiilasha aan ardayda u saarno si aan u soo tusno waxyaabihii ay class ku soo qaateen oo practical ah. maanta waxaan joognaa hay'adda shaybaadhka qaranka xarunta ay ku leedahay Berbera taasi oo aan doonaynaa ardayda in aanu tusno waxyaabihii ay class ku soo qaadanayeen iyagoo practical ah isla markaana ay arkaan qalabada kala duwan ee la isticmaalo iyo si ay u shaqeyso hay'adda tayada si loo hubiyo cuntooyinka ama dawooyinka iyo waxyaalaha soo galaya dalka guud ahaan. sidoo kale waxaan soo aragnay warshadda daqiiqda ee Berbera taasi oo ardayda ay soo arkeen habka ay u shaqeynayso sida habka loo yaqaan food analysis-ka cuntada si loo diyaarinayo iyo sida loo preserve gareynayo ama loo ilaalinayo cuntooyinka jooga ama lagaga shaqeynayo warshaddan daqiiqda ee Berbera. haddaba jaamacadda Adna Aadan waxay mar walba diyaar u tahay in ardayda ay soo saarayso ay noqdaan arday la jaan qaadi karta suuqa ama baahiyaha dadka ay qabaan reer Somaliland. Nuur Maxamuud Jaamac oo ka mid ah hay'adda dhowrista tayada ayaa waxa uu soo dhaweeyay ardayda jaamacadda Adna Aadan. waxaan maanta shaybaadhka qaranka ee hubinta tayada iyo cuntada anagoo hawl maalmeedkayga shaqo ku jirna ku soo dhaweynay ardayda nutritionka ee jaamacadda Adna Aadan University oo ka soo socdaalay magaalada Hargeysa. waxaan ku soo dhaweynay shaybaadhka qaranka iyo sida shaqada aanu qaranka u haynaa ay u socoto. waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa hawlwadeenada kale ee aanu wada shaqeynayno ee dhammaantood u hagarbaxay sidii ardayda ay u tusi lahaayeen waxyaabihii ay ardaydu uga baahnayeen inay ku ogaadaan shaybaadhka cuntada iyo dawada ee magaalada Berbera. ugu dambeyntii halkaasi waxaa ka hadlay Nimco Cabdiraxmaan Iimaan oo ka mid ah ardayda kuliyadda nutritionka waxaana ay faahfaahisay waxyaabaha ay ka faa'iiday halkaasi. waxaan ka tirsanahay jaamacadda Adna Aadan kuliyadda nutrition and food science. maanta waxaan nimi hay'adda dhowrista tayada waxyaabaha aanu halkan ku baranay waxaa kamid ah koorsidaan dhiganaynay inaan practicalkoodii aan sameynay sida food analysis-kii oo kale food quality control-kii oo kale. waxaan aad halkan ugu mahad celinaynaa qolada hay'adda dhowrista oo fursad noo siiyay inaanu maxaa la yiraahdaa ay si fiican noogu soo dhaweeyeen si fiican noogu sharxeen. wuxuu naga caawin doonaa inaan khibrad u yeelano waxyaabaha aan soo dhiganay aan hadhow toolana ku shaqo gali doono insha Allah. Guurad Cunaabi MMTV